mudane taliye ayaha ciidanka su'aalaha uu si diyaargaroobayo waa taagta kuleeyahay koowaad mudane taliye waxaa dadka degahooda maadooyinka u dambeeyay ku noqnoqonayay oo qabtay dilalka saraakiisha arrinkaas dadka wuxuu geliyey su-aal walaac geliyey ciidamaduna meelihii loo fayoobaa ayay ahaayeen marka wax baarisoo aad ku samayseen ma jirtaa waxse ma ka qabatay dhacdooyinkii dhacay ee ciidamada saraakiishii ciidanka lagu beegsaday su-aashaasi waa su-aasha labaad saraakiisha ciidamada ama askarta dhinta ee howlgal ku dhinta ama ku dhinta xanuun xagga alle kaga yimiyo sida xanuunada ibnaadamka ee caadigee shacabkii loo dhimanayo sidee umadkiisii loola macaamila maxaad siisaa waxaa jira ciidanku duwa xoogii qaranka xagga allana waxa weye xanuunadan oo ku dhiman karaya howlgal ciidan iyo waxa weeye xuduudaha iyo gudaha buu ku dhiman karaya marka sideebaa dadkii ay ka tageen ubadkoodii sidee loola macaamilaa arrinkaasina waa arrinka su-aasha kale waxay khusaysaa maxkamad iyo xeeraarinta ciidanka mudanayaal sarkaalka isagoo xil haya si ula kaca ugu tacadiyaa ama falala-aanshaxa ka baxsan ula macaamila bulshadii uu sarkaalka u ahaa ee uu taliyaha u ahaa ee weliba sida babliga ah bulshada u wada gaadha wax tallaabo ah oo ay ka qaadaan ma jirtaa oo aad u madax bannaantiin inaad waxa weeye tallaabo ka qaataan sarkaalka isagoo sarkaal sare ah xil weliba haya foolxumaha u macaamila anshaxumo sameeya ila waxay la mid yihiin baadilka ka mid yihiin wax tallaabo ah iyo wax dacwado aad ku furtaan oo lagu eedeeyo oo lagu maxkamadeeyo oo lagu xukumo oo lagu xidhaa ma jirtaa taasina waxa weeye waa maxkamaddaan weydiinayaa ciidanka dabdabis sida guddoomiyaha maxkamadda ciidanku ka shaqeeyay ama mase xeraaliyibu ahaa waxaa jira inaan xeer lahayn sidoo kale waxaa jirta inay xuquuq ciidanku leeyihiin uu ka maqan yahay waa darajooyinkii askariga ugu sareeya jananka haysta sawaaxili mooyaane ciidankii kale darajooyin male sideebay ciidankaas ula mid noqonaya ciidanka kale markuu fal galo ciidan xuquuqaadkii ciidannimo ka maqan yahay oo darajadu ka mid tahay sideebad hadhow tole maxkamadda intaad u keentaan aada waxa weeye u maxkamadaysaan mayay dhacdaa maxaad u raacday habraacaa nimankaa lagu xukumo waa raaceen su-aashiina kale waxaa weeye raallahada waxaa jirta dhismayaal gudoomiye kaiya taliya waxaa dhacdaa in ciidamadu ay dhiseen dhismayaal madaxafka qaranka oo egas qayyantii hore ama tuwanaskatu ku yaalla agaasimaha guud ee madaxtooyadu sheegay inay ciidanka qaranku dhisayaan waxaa kaloo jira biirkii madaxtooyada loo qorsheeyey inay dhiseen malooshiga kale dhismayaal kale oo ka madax bannaan goobaha ciidamada xaq bay u leeyihin ciidanku inay samaystaan goobo kaloo ka madax bannaan ciidamada waad dhisteen ma noo sheegi kartaa xeerka idin ogolaaday inaad qandaraaska kala qaadataan dhismayaal dhistaan waa su-aasha u dambaysa waxaa dhacday magaalada la yidhahdo badhan ee gobolka badhan ciidan baa ka gadooday waxaa weye waynu ognahay siyaasadda deestumaana siyaasad ahaan waxba deestu turtuuri mayno siyaasadda eelooyin gaara waynu isla aqaanaa waxaa dhacday ciidan baa gadooday ciidanka qaranka ka mid ahaa taliyaha ciidanka qaranku wuxuu qofkiibu soo fadhiistay uu hadlay wuxuu yahay iska tagaan buu yidhi awalba waxa weeye dhiigbaxday qaranka u ahaayeen mudane taliye ciidankii aad xukumaysay ee muwaadiniinta ahaa ee dalka jamhuuriyadda somalilan xuduudihiisa joogay tabasho ay tawdeen gar iyo gardarkay doontaa noqdeen tali dhiigbaxday ahaayeen
ummaddii gobolkii iyo qarankii ma ka raali gelinaysa arrinka aad iyo aad baad mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullah. waxaa arrintaasi tahay qofka sarkaalka ama qofka askariga ee qof shiciba ku xadgudba sidee loo soo dacweynaya ama maxay idinka yaalla weyn soo saamahayn waad arkayseen waxa dhacayay sida uu ku dhacay waa arkayseen sida dadka shacabka loogu tacadiyey iyo sida loo weeraray ataaka loogu qaaday madaxdii xisbiyada ee gobolada loo jirsiinayay iyo in cagaha laga joogtay raggii madaxda ahaa ee xisbiga dembiga intaa leh ee ciidamadiinu geysteen see looga qabaysa waad mahadsan tahay dembigu waa laba sayd weeyaan waa laba sayd tafeeras marka ugu horeysa waa inuu qof dhibanii jiraa sida wasiirku ba idin sheegay meel kastuu ka dacwoon kara xeerkuna wuu siinaya dastuurkuna wuu siinaya xeerarkan caalamiga ah heerka xeerarka cabkuna wuu siinaya waa inuu qof dhibanii jira oo socda oo dhib loo geystay oo dhaqaajiya kiiskaas waa inuu qof laga gala dembiga kale qaybta kale waxa weeye waa in qaranka laga gala labadaa qaybood un weeyaan qaranka markay tahay xafiiska xeelaanta dhaqaajinaya kolka qof laga galana qofkaasaa dacwoonaya oo hay-adaha ay khusayso u dacwoonaya oo qofka uu dacwoonaya dhaqaajintiisa yeelanaya markaasaasan kaga joogaya labada qaybood waad mahadsan tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفك الشخص قال لك قالوا حفيزك أي خصيصو ودعورية حفيزك أرنت عز خصيصو أيو دعورية حفيزك أسلو ودقاتنية لكن ضروري درية كده رجع قولها كل ترانا ويوجيهين وتدخلوا ويوجيهين dadka shicibka qiimeeya annagu isma qiimeeyna laakiin dadkana qiimeyn kara waxa la yiraahdaa gobolada bariga waxa laga yiraahdaa ciidamadii aanu arki jiray iyo ciidankani isla hal maaha waa ciidan ilaahay tarbiyeeyay baa la yiraahdaa dadka wax ma kufsadaan wax ma dhacaan marka dadkana ka shicibkana ka marqaatiya halkaana waxay ku tageen xiriir fiican iyo macaamilo fiican oo dadka la yeesheen waana lagu yaqaanaa sida waxaana jecelahay in dadka kulay waraysato marka warrama tirada gobolada bariga iyo halkan ciidanka qaranku xaggaas ilaahay wuu edbiyay anagu wax gaar ah ma naan barin laakiin ilaahay baa edbiyay dadkana xiriir iyo odayaashana xiriirkan anagu aan la leeyahay oo markaan tago gobol odayaasha waa la jiraa meel kastoo tagaba iyaguna way la shiraan marka dadka si wanaagsan ayaan loo dhaqanaa markhaatina waa ka tihiin hawlaha ciidanku qabto golihiinani markii la soo dooranayay in nabadgelyo ah ku soo baxdaan oo halka ku timaadaan ciidamada lahaa 4500 oo askari oo ciidanka qaranka ayaa ka hawlgalay gobolada bariga nabadgelyo lagama keenay haddaan ciidanka qaranka ka hawlgalin ilaa dhahar dabeecad wanaagsan oo dadka kula soconay baana taa noo hirgashay noo hirgelisay maanaan ka duwan ciidamada kale askariguna waxa weeyaan waa kalluun oo kale baduna waa shicibka haddaanu askarigu shicibka xiriir la lahayn ma noolaan kareen mana joogan halkaasi maanta ay joogaan waxaan ku dadaalaa oo askarta ku waaniya سيد هل كانوا جوكتان شعب كلا يشهد حير وناسن وأنا قاتان حير وناسن ويدلي وأنا ضوري سكرتها أن تيدون راعينا الشعب كانوا ورئيسه وما صنته